السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنيgu xabse musannuux hooyo waxaa lagu yaqaanaa waa hooyo waxaa lagu yaqaanaa naxariisteeda hooyo waxaa lagu yaqaanaa adigoo liitay ka dhigtaa qof adag hooyo waxaa lagu yaqaanaa ilmaheedu inuu yahay halyeey hadduu uu doqon yahay iyo hadduu fariid yahayba hooyo waxaa lagu yaqaanaa ilmaheedu waa u halyeey hooyo waxaa lagu yaqaanaa in ay markasta ilmaheeda nafteeda u hurto hooyo waxaa lagu yaqaanaa hooyo iyadoo daalan ayaysan ka daalin inay markasta ilmaheeda ay wax u qabato ama ay caawiso hooyo iyadoo gaajaysan ayaa laga yaabaa inaysan ka daalin inay quudiso ilmaheeda ama awlaadeeda hooyo ma daasho hooyo ma xanuunsato hooyo way dhimataa mooyaane adduunka si kaleeto kuma dhuumato inta badan hooyo waxaa lagu yaqaanaa in ay ilmaheeda maskaxiyan iyo caqliyan iyo cilmiyan ay u koriso hadda ka hor waxaa dhacday gabar ayaan friend ama saaxiib ahayn gabadhii ayaan waxaan ku idhi heblaayo walaal magaceeda waxaan iska dhahaynaa ceeblaay walaal gabar yar baa tahaye waa maxay dabeecad xumadan iyo respecti la-aantan aadan dadka kaa waaweyn tixgelinaynin dhaqankeena soomaalida suuban waxaa lagu yaqaanaa qofka yari inuu tixgeliyo ama uu xushmeeyo ama ka xishoodo dadka waaweyn waxay igu tiri walaal xabsaay waxaan kusoo koray rajanimo haddaad rajanimo kusoo kortidna markasta waxaad ku jirtaa difaac iyo dad iska celi sidaas ayaadan waxaad ku kala garanaynin qofka kula faca ah iyo kan kula eg iyo kii aad maaragtay la tirsan lahayd iyo kii aad xushmayn lahayd waxaan ku leeyahay walaal adiga i daawanaya adiga i daawanaya waxaan ku leeyahay haddii hooyada ay nooshahay dheh alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaahu hooyaday cimri dheer iyo cibaado suuban iisii hadday hooyadaa dhimatayna walaal u ducay kaaga baahan tahay hooyo ayaa waxay u buraanburaysaa wiilkeedii ama waxay u gabiyeysaa wiilkeedii waxay leedahay mar kasta hooyo geesi baa tahay aniga example haddaan iska soo qaado hadda ka hor waxaa dhacday wiilkayga yar ilaahiisaa lehe mascuud ilmahayga saddexdaa ilaahoodaa wada lehe mid walba occasionally waxaan ku ammaanay buraanbur laakiin haddaan soo qaato mascuud waxaan idhi mascuudow hooyo waxaan mahirow ku yidhi maraykan baa tahayo xaalkaagu male masuug magac inaad yeelataan mowlahay ka sugi wixii aan kula maro aan madluunsanaa miciinaanan haysanoo xal ku murugsanaa inaadiga maydhid baahan ka malaynayaa maka inaadi geysidoo aan madiina tago maka inaadi geysidoo aan madiina tago inaadi maqsuudisaahan ka malaynaya wixii aan kula maro aan madluunsanaa inaadiga mayrtid baahan ka malaynayaa nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam xadiisulqudsi wuxuu alla ku yidhi addoonkaygu wuxuu iga malaysta ayuu iga helayaa haddaad ilaahay wax wanaagsan ka rajaysato ilaahay wuxuu ku siinayaa wax wanaagsan waxaan leeyahay aniga iyo hooyooyinka ila midka ah waxaan leeyahay mar kastaba ilmaheenna yaynan ka quusan xataa markay ilmuhu weynaadaan oo laga yaaba inay nin yari intuu geed ka booduu talo ka boodaaye boodboodaan ha ka quusane alla u baryo qalbiga wanaag hooyo ku hay ilmahaagana u ducee hooyo waa jacayl hooyo waa xanaano hooyo waa dulqaad hooyo waa lama huraan hooyo adduunkana farxad iigu noolow aakharana fardowsi ilaahay ha ku geeyo aabbana waa hawsha guud waa mahagrade waa midka u taagan habeen iyo maalin hawsha guud iyo midda gaar ahaaneedba marka waxaan idin leeyahay hooyadaa hadday nooshahay anigoo ah xabse musanux waxaan ku leeyahay walaalkayga i daawanaya ama walaashayda i daawanaysa waxaan ku leeyahay hooyadaa hadday nooshahay alla ku xamdi una ducee ilaahu hooyooyinka nool cimri dheer iyo cibaado suuban sii ilaahu hooyooyinka dhintayna u naxariiso oo qabrigooda uga dhig rawdatan min riyaad aljanna haddaad rabtid inaad daawatid xabsa media
please subscribe. waan idin jecelahay Soomaaliyey kulligiin oo dhan. maalintu ha idiin wacnaado.